carwada bandhiga buugaagta ee magaalada Laascaanood ayaa galay maalintii labaad waxaana indhaha wufuudii ka soo qayb gashay soo jiitay bilicda iyo sidoo kale sida habsimida leh ee loo diyaariyay dhulku kala xariirsane boolaha xargaga iyo xirxir iyo boocame xuduniyo taleex iyo laascaano xaruntii gumaystaha xasuuqdee xaqu dirir ku joogay dhulku kala xariirsane boolaha xargaga iyo xirxir iyo boocame xuduniyo taleex iyo laascaano xaruntii gumaystaha xasuuqdee xaqu dirir ku joogay والحمد لله ما أنت ومالتي لبعض بندقة بواقته الأسعنات international book fair سفي عنا يوسعدا وحا سعدا خطبته يو قبيدي يو سوغانتي يسيدو كلا فرنقينتي بواقتي ماركتي لو تلقلي halkan waa goobta aan waastaynay dadku ay buugta ay ka soo buuxistaan anigu buug badan aan waqti badan doonayay baan helayo dhamaan register in the bible ninkii bible ugu hantida badnaa waxa weeye waqti badan baan doonayay iyo buuga Cabdi Saciid Faarax Juxa aan qabiyo quursi takoorka bulshada Soomaaliyeed ka hadlayay badal qurux badan baa ka dhacday waxaan u mahadcelinayaa muxuu ahaa dadkii barnaamijkan muxuu ahaa soo qaban qaabiyay ee ugu horeysa muxuu ahaa hay'adii muxuu ahaa tabaca iyo energy-ga iyo muxuu ahaa iyo gelisay iyo qarashaadka SVO aad baan ugu mahadnaqayaa anoo afka ku hadlaya gobolada ACC gaar ahaan afka gobolka Sool waxaan u mahadnaqaynaa ka dhalinyaro ahaan anigoo magacayga iyo magaca dadka mandaqada ku hadlaya waxaan u mahadnaqayaa hay'adda SVO iyo gudoomiyaha hay'adda SVO Cabdikariin Saciidow Cabdi oo muxuu ahaa hawshan bandhigu ahaa waxaan rajeynayaa marka bandhigaas soo gabagabo insha Allah in wax badan oo manaafacaada oo aqoon oo cilmi ah ay ka kororsan doonaan dadka reer Laascaanood iyo dadka martida ay ka soo qayb galay runtii meel walba waa la iska yimi oo Soomaaliya degto waxa la iska yimi Kenya waxa la yimi dowladda Soomaalida Ethiopia anagu waxaan ka nimi Garowe iyo Puntland baan ka nimi waan ku faraxsanahay in aanu ka soo qayb galno oo aanu qayb weyn ka qaadano bismillaahir rahmaanir rahiim maanta maalintii labaad carwada caalamiga ee buugaagta magaalada Laascaanood gobolka Sool 12 bishii December 2019 wali waxa socda panelskii iyo debateskii iyo doodihii dood cilmiyeedyo aad u qiimo badan oo dad Soomaaliyeed oo kala yimid meel kala duwan Soomaaliya iyo Xamar Jigjiga Somaliland gudaheeda doodahaas socda buugaag aad u qiimo badan oo lagu soo bandhigay iyo dadkii qoray iyo qorayaasha dadkii baa runtii oo talentida ayaa dibadkooda ay socdaan doodahoodii amaal aad u qurux badan farxad bay runtii noo tahay waa dhacdo taariikhi aan ku faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado waa maalin weyn waa maalin aanu munaasabad aanu in badan baxnaaninay waa mid aanu ku dadaalay waa mid aanu natiijadeeda gaadhnay waa mid aad maanta cid walba isaga timid dadka inta ku hadasha may iyo maxaa tiri ay isugu yimaadeen qof waliba uu doorkiisa ka qaatay la muujiyay nabadgelyada la muujiyay nolosha dadka la muujiyay horumarka adeegyada bulshada la ogaaday waxa gobolku yahay la ogaaday amniga aanu jecelahay gobolkan amnigiisa wax laga sheego isla markaasna hay'adaha had iyo goor iyo leeyahay baan la saaray baanka laga qaado la ogaado in dadku ay yihiin dad horumar jecel dad wadaniyad jecel dad ay tahay gobolka taariikhda muujisada badan ee aan anigu arkay waxa kamid ah qof kasta oo magaalada maanta aan arko ee iga soo horbaxay waxaad moodaa in aan weligii la soo noolaa tii markii aan baaray qofkan xagad ku aragtay isoo weydiiyana waxay noqotay jawaabtii inuu noqday qof aalada socialka sawirkiisa ugu soo noqday dabtana maskaxda record gareysay aad baan ugu faraxsanahay garay qof dhan oo ka soo dhaafay Mareykan oo buugtaas kaliya iyo dadkiisa inuu daawaday dadkiisa tiimka Maxamed Shagaxle ee Canada jooga ee hawsha isu soo xilqaamay noqda kuwa markasta barbar taagan horumarka bulshadooda alxamdulillah rabbil caalamiin Laascaanood international book fair oo ah bandhig buugaagta iyo dhaqanka oo isku jira meel wacan buu maanta maraya waana markii ugu horeysay insha Allah uu inoo socon doona aniguna hadiyadan ay soo abwaan gabuud wuxuu ka wakiilka ahaa
maxamed shagaxle iyo tiimkiisa waxaan ku sii wareejinayaa tiimka qabanqaabada oo iyagu hawshan wada ducaale runtii waxa weeye guul weyn iyo farxad iyo wax ilaahay loogu mahadnaqo bandhigga caalamiga ee buugaagta magaalada laascaanood oo markii ugu horreysay baradheereeye oo ka dheereeyey kii Garowe kii Muqdisho kii Hargeysa magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida bandhigyadii lagu qaban jiray sida aad indhihiina ku daawanayseen waxaa jira rag farshaxan ah oo Amiin Caamir oo kale ah oo dhalinyaro reer laascaanood dadka sawiraya oo markiiba sawirkiisa soo dhigaya waxaa jira fardihii ciyaarihii daaya dhaqanka dhaantadii jigjiga Soomaali shanta Soomaaliyeed ba afar ka mid ah Djibouti ma maanta ka maqlayn waa inay markii ugu horeysay laascaanood lagu qabto laascaanood waa buundada Soomaaliya isku xidha shanta Soomaaliyeed ba xudunteedii weeye dhinac walba inta ka xigta gobolada waad garanaysaan dhalinyarada jaamacadaha iyo iskuulada bay ka soo qayb galeen garoon madashan quruxda badan garoonka Cabdillah Cabdi taariikhiga ah haatan lagu wado amaba ay ka socoto bandhigii laascaanood international film runtii looga wada yimid dunida daafaheeda khaasatan dowlad deegaanka Itoobiya Kenya iyo runtii wadamo kale waxaynu wada ognahay waa markii ugu horeysay bandhig noocan oo kale lagu qabto waxaa runtii ka soo qayb galay bulsho aad u ballaaran mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u mahadnaqaynaa runtii tiimkii fikirka lahaa anaguna aanu kula shaqaynay inaanu madashan u diyaarino quruxda badan runtii si habsami ayay noo socotaa ilaa hadda waxaa la xusi karaa abwaano waaweyn oo runtii geyiga Soomaaliyeed magac kule ayaa yimid gobolka soo la gaaray mar haddii dhallinyaradii maanta sidaa garoonka quruxda badan isagoo isan ka taagan siduwihii ciyaaraha garoonka quruxda badanna loo sameeyey buugagtii iyo waxbarashadeeda waxay doonayaan inay gaaraan marka aqoon waa iftiin laga yaabaa in laascaanoodda maanta aynu aragnaa ay ka duwan tahay tii shalay la garanayay waxaanu rabnaa tamaantu inay ka duwanaato taberito oo buug feerkii uu ka socdo maalintii labaad waa wax ilaahay mahad loogu noqo waxaa laga yaabaa dad badan oo daafaha caalamka naga daawanayaan inay aamini waayeen meesha laascaanood tahay waxaan leenahay meesha waa laascaanood waa garoonkii Cabdi Bile waa carwadii buugaagta laascaanood soo buug feer waxaan leenahay soo dhawaada qalbi furan iyo gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa magaaladu waa magaaladiinii hawshuna maalintii labaad baan ku jirnaa madaxeen halkan waxa weeye waa maktabad uu hoodle laga furayo waxaan leenahay uu hoodle xagga aqoonta u shaqaaqaysaa aqoontii maktabadu waa waxaas aqoonta ku soo bilaabato waxaan leenahay qof walba aanu shan buuga shakhsiyan maktabada u deeqaya qof kastoo muwaadinana waxaa la doonayaa inuu buug u deeqo qofka buug 2 3 4 10 laascaanood hambalyo intaasoo dada oo martiqaadeen iyo soo dhaweynteennaba 1000 jeer hambalyo waa laynaga guddoomay waxaana tusteen wixii laascaanood laga sheegi jiray inay buugya been tahay oo saqo dhexal la iska wareegi marka waxaa leeyahay barta ka sii dadaala cabdikariin iyo tiimkiisa SVO-ga magaalada laascaanood maayarka dhammaantiinba hambalyo iyo shacabka laascaanood oo isku yiiliyey qalbi waxaanu ku sugannahay bandhigga buugaagta ee laascaanood oo ay noqonayso markii ugu horreysay ee lagu qabto gobolkeenna runtii dareen gaara ayay ii leedahay iyo farxad intaasoo marti sharafa oo ka kala timid dalalka daafaha caalamka gobollada deriska laascaanood iyo guud ahaan Soomaaliya oo dhan dareen gaara ayay ii leedahay oo de horta meel buugaag lagu soo bandhigayo buugaagtii lagu qoray Soomaali idilkeed qortay oo farta Soomaaliga ku qornaayo dhan baa lagu soo bandhigayaa anu buuga miiga ila madaxtooyada waan iibsaday